السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قالية سو دوادا كسو دوادا موقال عصب يبرتنا إسكاشا أوبشن تريدرز. لبدان بري waan kala mashquulnay mashquul adduunka iska jiray. Live trade maan soo galin. Marka engineer Cabdullaahi ayaa meesha joogay ana xogaa mashquul ay soo wajahay. Marka insha Allah muuqaaladeena taxan ayuu noqon doonaa. Hadda hal meel ayaa naga baaqday. Wadin karaal gelinaynaa 100%. waxaan rabnaa trade-ka inaan u wadno daily si idinkana aad encouragement ugu qaadataan iyo xirfad. marka soo dhawaada in badan waxaan idin leeyahay soo dhawaada idin salaam sida dhan tihiin groupka inta groupkeeda ku jirta Telegramka Iskaashi Option Traders iyo qofka caadiga hadda iga daawanaya shakhsiga iga daawanaya YouTube-ka aan groupka ku jirin waxaan leeyahay soo dhawaada. midda kale video ugu horeeya commentiga ugu horeeya ayaa linkiga groupka Telegramkeena uu yaalaa. haddii aad doonayso haddii aad YouTube-ka daawanayso groupkeena aad doonayso commentiga ugu horeeya ama description-ka videogan linkiga Telegramkeena kasoo raac Iskaashi Option Traders. halkaas oo kaaga horeeya dad suuqa in badan ku jira. masha Allah waxaan leeyahay soo dhawaada muuqaalkeena ayaan guda galeynaa. maanta waxaan baranaynaa waqti walba ku tahay aniga hadda haweeney tahay hadda adiga maalin ku tahay waqti walba ay daawanayso ku wacnaado. waxaan baranaynaa heelaadyada suuqa ama suuqa celceliska meelihii laga soo celiyay. waxaan isticmaalaynaa tools lagu magacaabo trend line iyo horizontal line, support line iyo resistance line. waa taqaanaa taas ayaan isticmaali doonaa anagoo suuqa ka qaadanayno profit. marka halka mid aan kaaga digayo mar walba waxa waaye in aadan isdhiibin. suuqan khasaari faa'iido uu leeyahay qofka dad ganacsi ku jiro uu khasaaraa uu faa'iida. that's it. suuqan hadda in yar khasaare ka aragto oo aad cararto meeshaan marka hamka milhid iska wada dhaaf. laakiin ninka ganacsatada ah khasaarada u bareeraa sometimes risk take inaad noqoto isku day. okay insha Allah website waxaa jiro investing.com haddii aad hore u aragteen investing.com. suuqaas website-kaas waxaa lagu ogaadaa suuqyada awoodahooda. lacagtan strong buy mia, strong sell mia, buy mia, natural mia, sell mia kaliya waxaa lagu ogaadaa awoodda waqti xaadirkaas oo suuqa marayo. waa inaad iska fiirisaa kadib technical analyse-kaaga ayaad isticmaali doontaa insha Allah. okay hadda waxaa kicinaynaa investing.com aan soo kacsanay. haddaad computer isticmaalaysa technical kortag wax ku dhufan technical kortag then technical summary ku dhufo. haddaad mobile isticmaalayso browserka ka dhigo by desktop ka dhigo si uu kugu soo baxo platformkan ii muuqda. okay lacagaha halkan ayaa ka fiiri doonaa oo kuwan lacagaha ujeedaan GBP, Euro GBP, USD CAD, NZD USD, Euro JPY, Euro CHF lacagaha idin loo ujeedaan. da muuqaalkan kugu horeeyo si aad ula qabsato muuqaaladeena si aad ula qabsato soo daawo muuqaalada ugu dambeeyay aan soo dhignay YouTube-keena insha Allah. hadda Euro USD waxaa maraysa xaalad strong buy. type indicators moving average waxay dhahayaan buy strong buy daily buy lewa. indicators sida idil waxay dhaheen strong buy 15 minutes hourly strong buy daily natural. summary-ga wuxuu dhahayay strong buy natural. lacagtan in badan buy inay kusii socota ayay u egtahay saacadaha ugu dambeeyo. JBP USD waa strong buy natural buy strong buy. okay Euro USD ayaan fiirin doonaa insha Allah. mideeda kale maanta waa sabti waxaa shaqeeya suuqyo la dhaho OTC. sabti iyo xad suuqan waa laga ganacsan karaa sida FX camal forex trading camal. forex trading hadda waqti xaadirkan close waa suuqa ma la geli karo wuu xiran yahay.
kan sabti iyo axad waad ka ganacsan kartaa 7 days waad ka ganacsan kartaa. So sabtidii iyo axad waxaa shaqeeya suuq la dhaho OTC. Okay, euro USD ayaan soo dooranaa. Binary-ga digitalka waa 99% profitable kiisa. Binary-ga meeqa waa 80. So digitalka ayaan ku trade gareyn doonaa insha Allah, ayaan ka trade gareyn doonaa euro USD ayaan kasii trade gareyn doonaa. Suuqna waxaa shaqeynaya OTC. Waa ujeedaan OTC. Okay, halka dollar aan dhigto 99 cent ayaan heli doonaa. Waa 1 cent oo halka dollar dhiman profitkeyga. So waxaa tagay halkan minute-kii oo ku saxayaan macnaha inuu ku saxayaan hubinaysaa. halkan tigada ku saarta tigta ka qaad. halkan 1 minute saaro. anaga waxaan isticmaalnaa strategy la 1 minute time frame. So candle-ka haduu ka qaldan yahay halkan ka sax. candle-kan laba dooro, midkan style-ka rabtid qaado, midka dhexda ka tuleel iyo midka kale aan mid kale ayaan qaatay. So graphical tool-kan isticmaalnayna waa kuwan. halkan waxaa ku jira line iyo trend line iyada iyo waxaa ku jira horizontal line iyo vertical line iyo Fibonacci line. Okay, horizontal line ayaan soo qaadanaa. suuqa xaaladda ugu dambeeya uu maraya ayaan ku qiimeyn doonaa. ma fiirinayo hadda xaaladda uu marayo suuqa, waqtiyada lasoo dhaafay, saacadaha lasoo dhaafay, xaaladda uu ku sugan yahay ayaan qiimeynayaa. waayo meesha suuqa laga celin karo waa xaaladihii oo soo dhaafay. leemanka meelahan oo kale, targetyadan oo kale waa laga celin doonaa. meelahan haduu yimaado suuqa, meeshaan oo kale haduu yimaado comeback inuu gadaal u sameeyo macquul. so waxaa laga celiyaa suuqa. fiir hadda meeshaan laga celiyay, ma jeedaa? halkaan same area yihiin soo maha, same area. marka hadda leemankaan oo dhigaa, ha ku wareerin, meesha ugu sareysa u gaaro suuqa. Okay, meeshaan meel kasii sareysa ma jirta. yes, inoo dhig. okay, levelka ugu hooseeya ii dhig oo gaaray saacadihii ugu dambeeyay waa halkan. that's good. okay, levelka ku xiga ugu hooseeya lower lowgiisaan raadinaa. okay, halkan waa level inta dhowr mar oo laga soo celiyo ujeedaa, and then breakout ayuu sameeyey. marka halkan waan dhigan doonaa. halkan waan dhigan doonaa. level ayaa ku jiro laga celiyay hadda. suuqii cariiri oo soo cariirina waa soo riixay. soo waxaad ogaanaysaa xaaladda hadda xaaladda hadda mari doono waa qiimeyn doonaa. suuqa haddaan evaluation ku sameynin ama tixraaca ku sameynin khasaaradeeda badnaanaysa. so strategy ada isticmaalaya khasaar. okay, hadda suuqa xaaladdu marayo macnaha zoom out iska dhe suuqan suuq hoos u daatamiya, suuq kor aaday hoos had usoo daadan rabo miya, suuqan suuq hoos joogo kor aadi rabo miya, iska fiiri. suuqa hadduu lower lowga joogo kor usii kaca, kor u aada. at least meesha ugu sareysa kor hadduu aado wala suuq celcelina. marka hadda suuqan suuq daato u egyahay. waa kana daadasho fiican ayuu sameeyey. leena nagu xariiqaa daadasho fiican ilaa halkan daadasho fiican ayuu sameeyey. so hadda suuqii comeback ayuu sameynaa ilaa meeshaas sare uu ka gaaro. laakiin se orod inoo socdo, orod kuma tagayo. leen walba leen macnaha checkpoint walba waa laga celinaa. level walba suuqa oo hore oo dambeeyay, levelka ugu dambeeya suuqa gaaray iyo levelka hadda uu marayo, levelka u dambeeya macnaha checkpoint uu noqonayo. kor u aada waa la soo celinaa. sal yar la soo celinaa, haddana sal yar oo sameysana kor u aada. si wuxuu u soconaa adiga leen tartiib u soconaa. mar salo baxsanaa mar bay. taasna waxaa kalifaysa levelada suuqa ugu dambeeyay ayaa kalifayso. meesha hadda soo dhaafay level waa levelkaas waa laga celinaa. had fiir meeshaan level ku jiro, halkan level ku jiro, inta waa laga soo celiyay. mujeda sala loo soo dharbaax. inta level ku jiro, inta level oo kasoo jabsada ku jiro, inta mujeda inta level oo suuq soo daata ku jiro. so levelada ugu dambeeya waa meelaha suuq laga celin karo. okay, indicator hadii la dhaho ana waxaan isticmaalaa indicator la dhaho Wilson Oscillator. badanaa indicatorada aamin ma lahan, khatartiisa badan. indicator isku aamin technical analysis kaaga isticmaal.
indicatorkan awesome accelerator ayaan isticmaalaa aan ku ogaado le xaaladdu hadduu maraayo waa la kaashtaa anoo technical analyst-kayga samaysanayo indicatorkan waa la kaashtaa so hadduu wuxuu dhahay indicatorka noo soo dhaweey okay trade-keeni ugu horeeya ayaan tuuraneynaa soo iska fiir suuqan level fiican ayuu joogaa 1 2 3 level wuxuu joogaa same ah okay okay buy ayaan ugalnay inshallah aan aragna trade-kani resultsiga uu ku dhamaado trade-ka waxaa fiican in aad boqolkiiba boqol aad iska fiirso intaad ku degdegi lahayd sooda ku degdegto khasaaradaada ayaa badnaanaysa iska fiir suuqa adigoo macnaha dhan walba ka fiirinaya hadda candlekan reversal candles uu kamid yahay waxaa la dhahaa hammer dragonfly iyo hammer candle la samaystay at least suuq kor inuu soo soco macnaha uu sii socon doono candlekaasaan ka qaatay confirmation so sidii ayaan u galay candlekana aan ugu qaatay trade-ka okay trade-keeni ugu horeeyay waa win garaynay $10 aan ku galnay so aan isla fiirino another trade okay suuqyada kale aan fiirino URJPY noo soo qabo waxaan rabnaa suuq walba in anaga analyze garaysan karno so ila soco habkan oo analyze garaynayo hadda euro USD waa kasoo qaadanay first trade okay levelka ugu sareysa ugu gaar saacadii ugu dambeysay suuqa leen dhigo okay levelka ugu hooseysa uu soo gaarina dhigo levelka ugu hooseysa ugu gaaro dhigo levelka ugu sareysay Nordic counter sorry Nordic higher lower lowga level ku qoy halkan level waaye dhigo intana level kala waaye ana suuq oo soo carcadiirinayna at least halkan meesha ka jabsado waaye level kale inoo dhig so hadda suuqan soo kor usii kacayo waaye ilaa qaybta sare uu ka gaaro inoo soo dhaweey okay san markuu kale trend line soo qaado adigoo xagga sare u eegayo trend line-ka saxo waxaa muhiim inaad saxto trend line-ka weli candlekan buy ayuu sii ahaan doonaa ilaa meeshaan uu ka tago okay zoom adnaade buy ayuu noqdo ujeedida ilaa meeshaas uu ka tago waa sugeynaa kadib sel ayaan usoo bashgarayn doonaa aniga u fiirinan levelka uu gaaray okay trend line kalena soo qabo habkan aan u fiirino ku gaadin suuqa meesha suuqa saddex mar ku dhaco
oo jibina meesha 3 mar ku dhaco oo jibina soo marka iska fiiri inta uu qaadi lahaa $10 ku galena xaalad macaan ku soo dabay level kan waxaan fiiriyay level ku dambeeyay u gaar bal aan fiirin trade kan iyo result-iga ku dhamaado marka walaal waxaan ku dhihi lahaa strategy isticmaal soo strategy aad isticmaal hadaa qasaarto wix ku qoran gooni waa dadaal sameey laga dhaadhicin meeshan qamar waa qof walba xirfad ayuu ku joogaa xirfadiisu ku faa'iida xirfadiisuna ku qasaara soo adiga isku day in aad meeshan xirfad ku joogto that's real okay second trade well is granny okay anaga wax la taaba karnaa inaan sameeyno rabnaa trade-da life inaan u sameeyno aad u jeedo hadii khasaare aan sameeyno aad aragto hadii faa'iido sameeyno aad aragto that's the reason why I also sameynayno waxa waaye dadka qaar traders-ka ah oo adiga YouTube ka soo galiyaan fiidiyoyada way qariyaan luuska badanaa soo anaga wax walba inaad ma u aragto si bareer ayaan jeclahay soo adiga waa qasaaro waa sameynay shakhsi walba professional trader-ka qasaaro uu sameynaa okay that's good marka dadaal sameey ade waxa lama huraan inaad dadaal sameyso okay trade kan asla fiirina result-iga ku dhamaado insha Allah suuqa aad u macaabiday waa 99% or 100% yahay jiro aad iyo aad marka meeshaan laga soo celiyo suuqa level ayuu noqon doonaa dhigo leenkaaga is this a level our first trade one faa'iidnay second trade one lose garaynay third trade one garaynay so meeshan ku qasaaro ila adiga qasaaro meesha ku sameyso ila kaaga soo baxay ma ahan qasaarada macnaha mid adiga inay ku gilgisho in ay noqoto macnaha taas ma ahan qasaarada waxay ku noqonaya aftiin meesha ku qasaartay si aad berina ugu feejignaato soo qof akoonka lacag ku shubanayo wuxuu gaaraa faa'iido fiican u sameynaa ilaahay gacantiisa adiga wuxuu ilaahay ku toosin ma soconayo laakiin strategy loo suuqa lagu isticmaalo ma fahanti marka adiga ilaahay guuleysiina ma sha Allah way soconayaan faa'iido fiican ay sameynayaan like $10 ku bilaabo qofku one day $50 ama $60 gaarsiina hunguriga galay bal 60 hadaan dhigto maxaan helaa وقيمنا هل كانوا كشنا $60 59 بروفيت هيلي 59.46 سنت هيلي $59 بروفيت كلام هو لك دلب معناه وقشنا دبو كده وقشنا وقسانا وحو سو ديساي أمر رزقنا مركا كتحدر إن عاد أكون كاجا وحكو وجرد إن عاد سوق أنجلسو تاس ما أهن ريسك تكر نما ما أهن حنيها هذا أنا بدك تنفعت سو كتحدر بداس إن عاد معناها تريدك لعقت هذا إدل أو ضدكتو ويا حلقة سوق استراتيجي صح وراعي إنه كوسو قدومه معقولة بلاستي
the last seconds 5 seconds soo marayo inuu kuu soo laabta macquul ah marka iska ilaali ka fejignaaw taas waa idin kaaga digayaa oo macnaha waa idinka waanina dadka qaar hami in macnaha ay himilo dheer leeyihiin soo waxaa soo dhista daa qasaarto niyad jabay kuu noqonaya dismoral noqonaysaa soo intaan niyad jabi lahayd isku day in aad taxadir markaaga hore aad sameyso risk takarnimo ma ahan lacagtaada idil in aad suuqa ku aaminto suuqaan dad badanaa ka ganacsado dad adiga ka lacag badanaa ku jiro soo khatar isgelin marka aniga adiga maskiinaan ah soo inaad xisaabtanto jeebkaagana aad ogaato waxaagana si aqli la aad u kordhiso okay this is a level lena nadiga at least levelka waa laga soo celiyey halkan inuu imaado ay u badan tahay len meel kale laga celin karo malaha levelkan oo imaana next candle cancel inuu noqon doonaan jeclahay halkan ku yimaado waxaan geli doonaa buy ayaan geli doonaa level suuqan level to level of hadda levelka uu ka jabiyey oo ku soo laabana hadda kan levelka uu soo tagay retest yar oo soo samaystay wadan buy uu galay inuu soo laabtay list xitaa option buy oo si faa'iideysan kara laakiin ku intii ma waxa rabaa in aan fiican ku galo halkan ku soo taabto level kan inuu soo taabta ayaan sugayaa soo ifahan this trade kan level kan inuu soo taabto ayaan sugayaa still suuqa xaalad sel ayuu ku jiraa halkan inuu soo dhawaaxan sugaa markuu halkan taabto automatic waan push gareynaa kor ayaan geli doonaa insha Allah haya okay trade kan ayaan kusoo xireynaa insha Allah afar trade ayaan sameynay insha Allah afar trade ma aan sameynay still 3 trade aan sameeyay insha Allah trade ugu dambeeyay result wanaagsan ayuu ku dhamaan doonaa insha Allah markaan aad isku day practice badan sameey kasaar wad waxun afahmi doontaa aad suuqan qofka xitaa adiga fahmo kor iyo hoos in loo galo hadii uu practice sameeyo qofkaas haduu practice sameeyo waxaa hubanti ah in uu fahmayo suuqa aad ku shaqeynayo soo wax walba gacan ku hayno practice waa soo isku day in aad practice buuxda aad sameyso practice joogta candlekan wuxuu noqday dragon fly inaan gala aheyd kor inaan galo soo laakiin inuu sel soo neefsada macquula fiirinaya meeshaan level fiican oo maraa laga oran karo meeshaan soo gudbi karo at least saas oo wada okay the last trade ayay noqon doontaa insha Allah result ay ku dhawaado asal arkeena insha Allah isku day practice sameey so candle kan wuxuu kamid yahay candle reversal candleska aan suuqa dib u celiya hamarna ogaad hammer at least hammer ayuu u egyahay so insha Allah trade kan result ku dhamaado asal arki doonaa dad kale practice sameey waxa aniga mar walbo idinku waanay waxay tahay in aad practice sameysaan practice-kada waa ilaha aad gool ku gaari karto
insha allah resulti ku dhamaado dulus ku dhamaado profit ku dhamaado war arki doona insha allah waa inoo next video insha allah video si share garay hada channelku cusub tahay kaga soo bir linkiga wuxuu yaalaa commentiga ugu horeeyo ma sha Allah waa weyn gareynay marka insha Allah adiga waxaad fahantay iyo waxaad fahminbo ama waxaad ku wareersantahay commentiga inoogu soo qor insha Allah waan kaga soo jawaabi doonaa hadaad youtube-kiga daawanayso ku soo bir linkigana telegram-ka commentiga ugu horeeyo ama description-ka oo yaala insha Allah waxaan rajeynaa waqti qurux badan iyo caafimaad وإنه مقالك xigo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.